aad iyo aad baan u salaamayaa macallimiinta. Magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiraxmaan, kana mid ah ardayda SPC, kuna soo biiray gruubkii u dambeeyay ee Group 8. Marka SPC inta kusoo biiray waxyaabo badan baa iskaga bedelay. Yacni waxbarashada markii intaanan koorska qaadan waxaan isku haystay yacni qof wax garanaya. Laakiin markaan soo dhex galay macallimiinta aan koorska qaatay, oon jeclaysanay week amba 2 week inay noo harsantahay oo weli koorskii noo socdo, waxa arkay inaanan ahayn qof aan waxba garanayn laakiin waxyaabo badan bartay. Marka dhalinyaro badan baan wareysanay SPC horta akaademiyada kale waxay kaga duwan tahay yacni qaabka waxbarashada. Akaademiyadaha qaar waxaa lagu qaataa maths structure keliya, barashada gaar baa loo baraa, technical indicators gaar baa lagu barayaa. SPC waxay kaga duwan tahay waxaasoo dhan ayaa hal meel ku wada baranaysaa. oo aad waxaan uga salaamay macalinka trade psychology-ga Ustaad Khalid oo isaguna waxyaabo badan oo maskaxiyan ah naga bedelay, iyo Ustaad Sakariye oo isaguna fundamentalka ah, iyo technical analyst-ka oo Ustaad Hudaal noo dhigo. aad iyo aad baan u salaamayaa saddexda macallin. Marka maanta anigu waxaan nahay groupkii 8, oo maanta group 8 waxyaabahan kaga duwannahay gruubyadii hore yacni waxyaabo badan baan joogtaynaa oo waxbarashadii baan joogtaynaa, macallimiintii baan xiijinaa oo kunaada noo kaalaya. Marka horta waxyaabihii igu yaabka badnaa waxay ahayd yacni intaanan SPC soo gelin yacni inaan maalgashano muxuu ahaa crypto aan project lahayn, yacni coins aan project lahayn. yacni foomadii waa nagala daweeyey, yacni suuq dhaqaaqay inaan iska daba oranno, waxaana la baray inuu suuqu isagu noo iman doono aan anagu daba caarin. waxyaabaha badan ayaa noo saaciday. Marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan macallimiinteedu muddo badan iga soo horeysay suuqa, inaan daba fadhiisan doono oon khibrad ka qaadan doono. insha Allah way naga soo horeeyeen oo iyaga muddo badan suuqa ku jiray. Anagu hadda ustaadin ma noqon karno, waxa ma noqon karno, waayo muddo badan baa suuqa naga soo horeeya, suuqa waan ku cusubnahay. Marka insha Allah waxyaabaha ugu yaabka badan leh crypto qofka aan wax baran marmarka qaar marka uu fiirsato scam ay noqon kartaa. yacni crypto dadka lacag bay siisaa kadib way kala noqotaa. marka qofka aan suuqa si fiican u baran scamkaas ku dhacaya, oo yacni $100 buu gashanayaa, 150 ayay siinaysaa, kadib lacag badan buu wada gelinayaa, kadib lacagtii baa lagala noqonayaa. waa scammers qaybkaasay u shaqeysaa, waa sida scammers u shaqeeyaan, in lacag lagu siiyo kadib lacag laga qaato. marka maanta waxaa farxad ii ah inaan ardayda ka noqdo SPC oo maanta wax badan iska kii bedeleen. marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan ka mid noqon doono macallimiinteeda aan waqti la qaadan doono groupkan. isbedelka weyn ee ah aan sameeyey waxaa ka mid ah inaan 3 bilood 4 bilood ka hor aan xagga hoose joogi jiray oo dhegeysan jiray, maantana aan ka hadlayo. taasi waa isbedel weyn oo aan la dareemi karin. marka waxyaabihii igu yaabka badnaa intii aan suuqan ku jiray waxaa ka mid ahaa yacni wax FOMO la dhaho maan fahansanayn. marka FOMO Ustaad Khalid aad baan uga salaamaya isaga xaggan, waxyaabo badan oo maskixiina ayuu naga dhisay oo yacni xaqa suuqa ah oo aanan garanayn. marka waxaan rajaynayaa inaan ardayduna tusaale ahaan aan wada shaqayn doono oo ardayda hore aan isbaran doono, macallimiinta si fiican isku baran doono. oo Ustaad Trade isagana aad baan ugu salaamaya xaggan, oo isagana aan si gaara ula socon jiray, oo yacni suuqan yaabi jiray, yacni qaabkii wax u sharaxayo, qaabku ay u qadaynayaan macallimiintu. waxyaabihii ugu yaabka badnaa bay ahaayeen ee aan xaggan ku imaaday. yacni spaceka markaan kala socon jiray oo arkayo suuqa iyadoo la jihaynayo waan yaabi jiray. markii hore waxay igu darnay suuqa waan ku nasiibin jirnay, yacni waxbaan qasbi jiray oo yacni suuq aan bay ahayn baa u diri jiray, suuq aan sal ahayn baa sida u diri jiray. yacni tusaale ahaan sida ciyaaraha kale u socdaalin jiray. marka waxaan ogaaday inaanay waxaani wax shaqaynaya ahayn oo u baahantay aqoon la barto. maasha Allah aqoon igu filan hadda waan bartay. insha Allah waxaan rajaynayaa intaa in ka badan inaan kasii xoojiyo. macallimiinteeda aad iyo aad baan u salaamayaa. marka SPC horta marka kaalido ayuunbaa ogaanaysaa marka wax barato. Ustaad Hudaale isagana macallin aad iyo aad nagu dadaalay, xaggan baan ka salaamayaa isagana, oo technicalka naga dhisay oo waxyaabo badan naga dhisay oo juhdi badan na geliyey. marka waxaa jira yacni markaad course qaadanayso dad baa la wareystaa, ardayda qaar waxay noo sheegeen yacni in marka SPC waxyaabaha lagu bartay iyo waxyaabaha meelaha kale lagu kala barto inay kala gaartay. SPC waxyaabaha lagu barto iyo meelaha kale waxa lagu barto in tusaale ahaan akaademiyada qaar marka structure gaar baa lagu barayaa, price action gaar baa lagu barayaa, technical indicators gaar baa lagu barayaa. xagga waxyaabahaas oo dhan ayaan ku wada baranay
maanta waxaan rajaynaynaa suuqa ka shaqaysan karayno oo aan lacag samayn karayno marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin